waa dal Carbeed oo dhaca bariga dhexe iyo koonfurta galbeed qaaradda Aasiya, gaar ahaan darafka waqooyi ee Khaliijka. Waa dal yar oo hareeruhu ka xigaan dalalka baaxadda weyn ee Sacuudiga, Ciraaq iyo Iiraan, wuxuuna dhan ka saaran yahay gacan-biyoodka Bershiya. Wuxuu dhacaa goob istiraatiiji ah, waxa ayna naftada uu soo saaray ka dhigtay mid ka mid ah waddamada ugu qanisan caalamka marka la eego dhaqaalaha dalka iyo dadka ku nool. Magaca Kuwait waxaa lagu macneeyaa dhul sarreeya oo taag ah. Badka ama baaxadda dalkan waa wax ka badan 17,000 oo kiiloomitir oo isku wareeg ah, taasoo ka dhigtay dalka 164aad marka la eego sida ay u kala dhulka weyn yihiin dalalka caalamka. Midda xusidda mudan ayaa ah, marka laga reebo gobollada Banaadir iyo Jubbada Dhexe, gobollada kale ee Soomaaliya dhammaantood waa ay ka weyn yihiin dalkan baaxadda yar. Dadka ku nool Kuwait tiradooda waxaa lagu sheegaa wax ka badan 4 milyan, waxaana dhulka qarnigii 18aad degeen qabaa'ilo xoolo dhaqato ah oo ka yimid Jasiiradda Carabta, waxaana ka mid ah qabaa'ilada Al Sabaax oo ah kuwa haatan xukuma waddankan. Dadkuna waxay ahaayeen markii la aasaasay Kuwait kuwo ku tiirsan soo saaridda luulka iyo ka ganacsiga badda. Markii ugu horreysay oo la daaha qaaday shidaalka dalkan waxay ahayd 1934, taasoo waddankan ka dhigtay waddamada ugu qanisan caalamka. Asxaabay waa mahadsantihiin, mowduucina halkaas inoogu egyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.